waxaan u malaynayaa inuu golaha ka sii daayay statement inkastoo mar xilli dhow intaana dooda bilaabin ay ahayd laakiin annaga waxaan u aragnaa ama shakhsiyan aniga waxaan u aragnaa inay tahay mashruuc la siyaasadeeyey madaxweyne farmaajo aniga asaga waxaan wada galnay doorashadii 2016 afar jeer oo kulanay Nairobi aan ku kulnay aniga asaga bayskiisa doorashada 2016 wuxuu ahaa Nairobi halkaasoo deganaa xamar wuxuu nala joogay bil iyo 17 beri kaliya inta kale wuxuu ka kambeyn gareey jiray Nairobi hal ku dhigiisa ama hal hayskiisa doorashadana wuxuu ahaa Ethiopia cadow noo ah Kenya saaxiibay noo tahay saako wuxuu na barayaa bil cagsigeeda Ethiopia waa saaxiibkeen waa brother Kenya waa cadow asaga la noo dhigo annaga markii waxaan leenahay annaga waxaan ku talinaynaa war madaxweyne siyaasadda arrimaha dibadda ma gasho laablakac iyo dan siyaasadeed iyo ma gasho laablakac iyo dan siyaasadeed iyo danaysi dhow iyo doorasho iyo oleeda ma gasho hal la kala daayo siyaasadda arrimaha dibadda labo Soomaalida meeshan joogtay kuwii dhageysanayo waxay og yihiin Kenya waxaa degan Soomaali ku leh ganacsi xoog badan oo og yihiin Soomaali oo dhan Kenya waxaa degan qaxootiga ugu badan ee Soomaaliyada ku nool oo 700 kun lagu qiyaaso Kenya kumanaan kun oo arday Soomaaliya wax ku barata annaga marka waxaan rabnaa inaan kala saarno kambeynka madaxweynaha oo leysa doorashada iyo danaha iyo derisnimada labada dal ka dhaxeeya inaan kala saarnaan u baahanahay